jimca ay soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay 18 bisha Juun sanadka 2026 waa barnaamijkeennii saddexaad aan idiin soo gudbinayno maanta oo ah maalinimo khamiis ah. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaaraadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. qodobada barnaamijka aanu ku soo qaadanayno waxaa ka mid noqon doona aayatullaahiga Iiraan Mujtaba Khamenei oo goordhow warbaahinta Iiraan ay baahisay fariin uu ugu talagalay shacabka Iiraan. ciidamada Mareykanka ee ku sugan badda bariga dhexe ama xeebaha bariga dhexe ayaa war weyn soo saaray goordhoweyd. xisbullaahina waxay sheegtay caawa inay dagaal qaraar oo gacmaha la iskula tagay ay la galeen ciidamada Israa'iil oo doonayay inay qaybta dhulka ka soo weeraraan deegaan ku yaala koonfurta Lubnaan. haddaba wararkaas ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa. waa barnaamijkeennii saddexaad. intaan ku jirno wixii warar wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. waa habeennimo khamiisa oo jimca ay soo galayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 18 bisha 6 2026. wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa. haddaba qodobo muhiima ayaa noo soo socda, balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa aayatullaahiga Iiraan oo warkiisa ku saabsan heshiiska la gaaray aada loo sugayay. aroortii saakay ayaa heshiiska la saxiixay. waxaa Iiraan u saxiixay madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian halka Trumpna uu dhanka kale u saxiixay. laakiin Pezeshkian madaxweynaha iyo aayatullaahiga awood ahaan aayatullaahiga sareeya. aayatullaahiga falcelintiisii ayaa marka la sugayay. shacabka Iiraan kaliya ma ahane xataa caalamka oo dhan baa sugayay. waxaa leeyahay ninkan hadduu rabo waa ka laabtay iska nimanka aayatullaahiyaasha niman saalan ma hadday rabaan waxaas heshiis wax ka jira bale nimankaana heshiiska galay anaga kuma jirna iska dhahay hadday rabaan. marka waxaa la soo saaray fariin la yidhi waxay ka timid Mujtaba Khamenei aayatullaahiga Iiraan. wuxuu u soo diray shacabka Iiraan. warbaahinta Iiraan ayaana markaa fariintaasi laga faafiyey. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey arrinkaa laga qoray. hogaamiyaha sare ee Iiraan aayatullaahiga Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa soo saaray fariin cusub. fariintan uu soo diray aayatullaahiga Mujtaba Khamenei ayuu ku yidhi saraakiisha Iiraan waxa ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay u gaari lahaayeen marxaladda saxiixa heshiiskan isfahamka ah. madaxweynaha Mareykanka ayuu sheegay in booska uu ka taagnaa arrintan aanay u cuntamaynin xilligaas Iiraan. wuxuu adeegsaday xeelado kala duwan si uu u gaaro heshiiska isfahamka Iiraanna uu qanciyo. markii hore waxa uu yidhi aayatullaahiga markii hore waxaan lahaa ra'yi ka duwan ra'yiga madaxweynaha Iiraan Pezeshkian, laakiin waan ansixiyey heshiiska kadib markii madaxweyne Pezeshkian uu ballan qaaday inuu ilaalin doono xuquuqda dadkeena. wadahadallada aan samayn doono mustaqbalka macnaheedu ma ahan inaan aqbali doono shuruudaha uu cadowga la iman doono. madaxweyne Pezeshkian ayaa ii xaqiijiyey in haddii dhinaca Mareykanku uu ku sii jiro dalabaadkiisa aysan u hoggaansami doonin, wuxuuna sugi doonaa fulinta shuruudaha ku xusan heshiiska. haddaba waxaan ansixiyey ayuu yidhi ugu dambayntii aayatullaahiga Iiraan heshiiska kadib markii madaxweyne Pezeshkian iyo golaha amniga qaranka Iiraan ay ii ballan qaadeen inay ilaalin doonaan xuquuqda dadkeena iyo weliba jabhadaha iska caabinta ee gobolka marka laga hadlayo Lubnaan iyo meelaha kale. marka warkiisa marka maxaa ka baxay oo nooga baxay aayatullaahiga warkiisa la sugayay. nuxurka warka intaasuu ahaa. kow wuxuu caddeeyey horta sheekadan wadahadalka ah inay wadeen madaxweynaha iyo raggiisa, macnaha wasiir khaarijiyaha Caraaqji iyo nimankan iyo hawsha qaabilsanaa. isagu kuma jirin,
laakiin markii hore waa diidanaa uu yiri aniga waxaan u arkayay nimankan inaysan dadkeenu khatar ku yihiin waxaan heshiiska loola wareegayo laakiin markii dambe wuxuu yiri waxa igu qanciyay madaxweyne Pezeshkian sida qoraalka ku jirta marka wuxuu yiri Pezeshkian ku raacnay isaga iyo golaha amniga qaranka iyo raggan Qalibaaf iyo waxa kan ayaga ku raacnay iyo Caraaqji iyo inay heshiiska noo soo qaadaan heshiis aan dhibaato ku ahayn dadkeen haddii Mareykanka ay galab ka arkaan in heshiiska ay ka laaban doonaan annaguna waa la qaadanay aniguna waa ogolaaday laakiin hal fariina u diruuyin waxaan ku yiri jabhadaha wax iska caabinta heshiiska waa inay qayb ka noqdaan macnaha waa xisbullah iyo awlaadii oo dhan waa inay qayb ka noqdaan annaga kaliya heshiisa la gali karna male waa in meel walba heshiis ku saameeya hadduusan macalinka weyn hawsha qaban karin oo Netanyahu ka baqayana asaga u taala marka arikaan waa naga aqbaleen macalinka weyn waa laga warsugayaa inuu shaqada dhameystira la leeyahay marka hadalkii laga sugayay Mujtaba Khamenei muhiimadiisu waxay leedahay Al Jazeera intaas ayuu ahaa ay leeyihiin waayahay Mareykanka asaguna Congress-ka ama aqalka baarlamaanka ayaa markan eegaya heshiiskii Trump iyo kooxdiisu ay soo galeen nuqul kamida aqalka cad waxay u gudbiyeen la leeyahay saacada ka hor Congress-ka ama baarlamaanka wadankaas haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay wakaalada wararka ee Reuters waxay leedahay aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa heshiiska nuqulkiisa waxay u gudbiyeen Iran lala galay Congress-ka marka Mareykanka waxay u gudbiyeen baarlamaanka wadankaas ayay markaa heshiiska u gudbiyeen iyaguna baarlamaanka ayaa war ka soo saari doona hawsha marka halkaas ay joogtaa Switzerland marka maxaa ka socda waatii shalay sheekadoodii la baajiyay oo bari heshiiskii dhici lahaa laakiin hadda waxaa leeyahay wufuud ayaa is arkaysa meeshaas Pakistan xataa ra'iisul wasaaraheeda inuu tagay maadaama heshiiskiiba la saxiixay wakiil ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kulamada caadiga ka qayb gali doona Switzerland Iran wafdi ay u diri doontaa halkaas Mareykanka wufuud soo diri doona Switzerland marka barito is aragyadii ugu horeeyay 60 maalmood qodobada la rabo in la isla meel dhigo ayaa halka bari ka bilaaban doona leeyahay hawsha halkaas mare ciidamada Mareykanka ee jooga marka bariga dhexe ee badda gaar ahaan kuwa ku dhow marinbiyoodka Hormuz ayaa war weyn caawa soo saaray haddaba markaan tuso ciidanka Mareykanka waxay si rasmi ah u sheegeen caawa inay qaadeen xayiraadii badda ay ku hayeen Iran taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee leeyahay CENTCOM waxa uu sheegay in xayiraadii ay ku hayeen Iran ay markaa qaadeen oo ay xayiraadii ka qaadeen Iran marka laakiin waxay sheegeen inay la socon doonaan mar walba awaamirta madaxda gaar ahaan Trump hadallada ka iman doona haddii nimanku heshiiska ay ogol yihiin ama wax ka halaysan yihiin in hawsha marka lagu laaban doono laakiin hadda waa qaadnay yiraahdeen amarkaas markan aan la siiyay marka xayiraadii Iran waa laga qaaday waaye qodobka halkaas kaga gudbaynaa sheekada marka xiisaha leh Lubnaan ayay ka qasantahay Israa'iil waxay rabtaa halkaas inaysan wax raada ku yeelan heshiiskan Mareykanka iyo Iran Mareykankana waa lagu soo qasbay waatii Ayatollah fariintiisa uu ku lahaa jabhadaha muqaawamada waa in heshiisku ay mar walba qayb ka noqdaan Israa'iil marka waxa laga rabaa inaysan halka dagaal ku qaadin iyo inay halka ka soo baxdo soo bixidii marka shuruuday dhigaysa way adagtahay laakiin dagaal qaadista waa la isku qabsanayaa haddaba marka waxaa hadlay goor dhaweyd wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil haddaba Al Jazeera waxay leedahay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ninka la yiraahdo Katz wuxuu sheegay haddii Xisbullah ay rasaas nagu soo ridaan annaguna weerar ayaanu markiiba ku qaadi doonaa oo waa u gudbi doonaa marka waa iska hanjabaad hadhow rasaasta adaa nagu soo riday meesha arbitra ma joogo rasaasay nagu soo rideen sidaas ugu jawaabnay iska dhahayaan moogtahay laakiin marmarsiyo warbaahintu sii marina wuxuu leeyahay haday rasaas nagu soo ridaan Xisbullah annaguna waa ku ridaynaa isla markii warkaas uu soo baxay Xisbullah war soo saartay leedahay ninka waa beentiis weerar soo qaaday
weerar ayuu nagu soo qaaday dhulka ah haddana waxaa socda dagaal qaraar oo gacmaha iskula tagnay ayaa caawa socdaa leeyihiin haddaba markaanadi tusoo warkiisa kadib warka ay soo saareen xisbullah waxay sheegtay inay dagaal aada u qaraar ay kula jiraan ciidanka israa'iil oo isku dayay inay horay usoo socdaan bayaan rasmiya oo goordhow ay soo saareen dagaalyahanada ayaa waxay ku sheegeen in dagaal qaraar uu hadda dhex marayo ciidanka israa'iil iyo ciidamadooda kuwaasoo isku dayay inay horay usoo sikadaan deegaanka la yidhaahdo arnoon kaasoo ku dhow dhinaca geeska kafartineed meesha la yidhaahdo koonfurta lubnaan ilaa ninka marka uu hadlayo waxaanuu ogyahay xisbullah marka waxay leedahay ninka hadalkiisa haddii xabad lagu soo maxay taangeedoodiibana soo aaday marka nimankaasu ma loo nasaraayo nimankaa koofiyartaa nima sahlan maa maanta oo dhan waa iska kaa daba wareejinayaan wax ballana iyo wax kale oo meeshaa ka soo socdana malaa lagu leeyahy marka sheekadaasu ayaduna halkaasay baraysaa qadar xaysiisa kadib waxaan u gudbaynaa wixii akhbaaraada ee soo dhacay intaynu ku jirnay barnaamijkeenii saddexaad qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aynu maraynaa haddaba warka caawa ugu dambeeya ee soo dhacay hadda aan hayno wuxuu leeyahay Trump waxaan filaynaa in xabad joojin dhammaystiran ay dhici doonto oo xataa ay ku jirto Lubnaan wax dambo xabada oo dhici doona ma leh ayuu leeyahay waxaan filaynaa in markaa xabad joojin dhammaystiran meel walba ay ka dhacdo wada hadaladuna si wanaagsan ayay ku socon doonaan wax walbana way dhammaan doonaan uu leeyahay xabad joojinta Lubnaan in la joojiyo waa uu leeyahay Lubnaan hadda maxaan maqlaynay dagaalaa socday xisbullah iyo ayaga israa'iiliyiinta marka sheekadaas oo ayaduna aaday u adkaan doontaan le heshiiska waxyaabaha aadka u adag ay ka mid noqon doontaa israa'iil oo diidan Lubnaan arrinteeda